Magaciisu waa Solomon, waxa uuna ku nool yahay tuulo ka mid ah waddanka Sierra Leone. Waddanka oo dhan waxa ka socda kacdoon, dowladda iyo mucaaradka ah. Waxa uuna ku jiraa civil war. Solomon waxa uu dhex joogaa reerkiisii, waana kalluumaysato. Waxa yar uu soo helo ku masruufa xaaskiisa iyo ubadkiisa. Subaxnimadii ayay bannaanka u soo baxeen isaga iyo wiilkiisii, iyagoo halkan lugeynaya. Ayaa wiilka waxa uu ku oranaya waxa rabaa markaa weynaada inaan noqdo dhakhtar. Hal mar ayuu Solomon wuxuu arkayaa ciidamadan faraha badan ee soo galay magaalada kadibna waa uu soo cararaya isaga iyo wiilkiisii. Waxa uuna afka soo saaraya gurigii uu degnaa si uu reerkiisa u badbaadsado. Laakiin jabhadii waa ay wada laayeen dhammaan dadkii magaalada joogay intoodii badnayd. Solomon waa la qabtay waxa uuna qeylinayaa xaaskiisii waxa uu ku leeyahay iskaga baxsada meeshan. Jabhadii ayaa magaalada qabsatay. Ninkan waxa lagu magacaabaa Captain Poison. Waxa uuna gacmaha ka jaraya dadkii u codeeyay dowladda. Ilaa markii dambe Solomon laftirkiisii gacmaha halkan loo saaray. Isaga oo laga goyn raba ayuu leeyahay Captain Poison ninkan iida. Waxaan u kaxaysanayaa buuraha macdanta laga qodo. Kadibna waa ay soo kaxaysanayaan beesha caalamku waxay u fadhidaa siday uga faa'iideysan lahaayeen macdanta Sierra Leone maadaama waddanku galay dagaal sokeeye. Solomon waxa uu ka shaqeynayaa halkan waana meesha macdanta laga baaro. Diyaaraddan waxaa ka soo degaya ninkan oo lagu magacaabo Dini. Waxaana ku arki doontaan filimka intiisa ugu badan. Solomon hal mar ayuu waxa uu ka helay webigii dhagaxan dhaymanka ah. Waana dhaymankii ugu weynaa abid laga helo waddanka Sierra Leone. Isla markiiba Solomon biyaha ayuu ku celiyay waxa uuna gariyay labadiisa farood dhexdooda. Waa uu ka soo baxsanayaa ilaa uu halkan duurkan cidlada ay yimaado. Waxa uuna isku dayayaa inuu qariyo dhaymankii. Kadibna godkan yar ayuu u qadayaa ilaa uu arkay hal mar Captain Poison oo baaskarood ku haya kuna leh keen dhaymanka. Nasiib darro dagaal ayaa bilaabmay. Waxaana soo weeraray ciidamadii dowladda. Waa la kala cararay dhammaantood. Solomon isla markiiba waxa uu qodayaa godkiisu halkan ugu aaso dhaymankii. Isla markiiba waxa uu yimi ciidamadii. Kadibna waa uu isdhiibay. waa la soo qabtay waxa la keenay xabsigan dhammaan dadkii ka shaqaynayay buurihii macdanta. Ninkan waa Captain Poison oo xabad ee isha kaga dhacday. Kadibna si lama filaan ayuu wuxuu arkayaa Solomon. Waa uu ku qaylinaya waxa uu ku leeyahay xagee ku qarisay dhaymankii. Solomon waa uu kasii jeesanaya mana rabo inuu la hadlo. Waxa hal mar maqlaya ninkan cadaanka ee lagu magacaabo Dini oo ah nin South African ah kana shaqeeya macdanta una yimi halkan sidii uu macdanta uga baaran lahaa. Waa la soo sidaayay dhammaantood. Solomon waxa uu uga soo baxay xabsigii banaanka waxa uuna dhex lugeynaya magaaladii. Halka Dini uu isna uu ka raadinaya ninkan magaalada waxa uuna ogaaday sirtii ahayd in Solomon uu gacanta ku hayo dhagax diamond ah. Solomon waxa uu raadinaya xaaskiisii iyo caruurtiisii. Kadibna waxa uu imaanaya meeshan oo ah xero qaxooti si uu uga raadiyo inay ku jiraan xaaskiisii iyo caruurtiisii. Magacoodina waa uu ka waayayaa. Dini waxa uu arkay Solomon. Solomon ayuu wuxuu ku oranaya waxa rabaa inay ii sheegtid meesha uu yaala diamondkii laakiin waa uu ka aamusaya. Halkan waxa lagu tababarayaa caruurtii yareereed ee ay jabhadu qaateen waxaana ka mid ah cunugii yaraa ee Solomon. Dini waxa uu helayaa gabadhan journalistaha ah waxa uuna ku leeyahay waxaan rabaa inaad i caawisid meelaha adag ee aan la geli karin waa ayna ka ballan qaadaysaa. hal mar magaaladii waxa soo weeraray jabhadii. Solomon iyo Dini waa soo cararayaan. Baabuurtii oo dhan waa la gubay. Magaaladiina waxa soo gashay jabhadii. Kala orod ayaa lagu jiraa. Dini halkan ayuu ku dhuumanaya isaga iyo saaxiibkii Solomon. Kadibna way soo dhaqaaqayaan ilaa ay askartan u jiraan inuu Solomon soo qabtay ninkan cadaanka ah. Markiiba Dini waxa uu dilayaa labadii askari halka Solomon uu aad u la yaaban yahay ninkan ficilada uu samaynayo. Intaa kadib waxay yimaadeen magaaladan yarta ah oo ay dowladdu gacanta ku hayso waxayna soo qaateen helicopter si ay u gaaraan meeshii uu ku qoriyay Solomon diamondkii yaraa. Laakiin Solomon waxa uu ku yiri ilaa inta aan familkay ka helayo kama soo saari doono dhagaxa diamondka meeshii aan ku qoriyay. Waxa ayna keeneen xoradii qaxootiga ahayd oo loo maleynayo inay ku jiraan Solomon iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii. Solomon waxa uu soo istaagay shabaqa ilaa uu ka arkay xaaskiisii. Kadibna waa uu qaylinaya way soo ordayaan. Aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu xaaskiisii iyo caruurtiisii helay. Laakiin gabadh yareed ayaa u sheegaysa in cunugiisii yaraa ee Dia ay qaateen ciidamadii jabhadaha. Waa uu qaylinaya. Ninkan askariga ayaa ku oranaya qaylada jooji ilaa markii dambe si khasab ah meeshii laga soo kaxeeyay. Waa ayna ku soo guuldareysteen inay xaaskiisii iyo caruurtiisii uu soo qaato Solomon. Diyaaradda ay dib ugu soo laabteen waxayna soo marayaan buurahan aadka u quruxda badan. Dini waxa uu ku leeyahay gabadhan journalistaha ah waxaan rabaa inaad ka dhigtid Solomon kaambiramaankaaga si aan u tagno meesha laga qodo macdanta. Laakiin way ka diidaysaa waxaana ku leedahay shaqadeeda taas maaha ilaa uu markii dambe ku qanciyay in uu lacag badan siin doono. Way ogolaanaysaa. Isla markiiba baskan ayay soo raaceen. Solomonna waa kaambiramaan halka Dini iyo gabadhana ay yihiin wariyaal. Baskii ayay soo fulayaan. Kadibna waxay arkayaan tuuladan yarta ah ee lagu baabiyay dadkii joogay dhan. Solomon waxa uu soo qabanaya wiilkan yar aad ayuu ugu murugaysan yahay
xaaladda meesha ka socota waxaana loo sheegayaa in jabhaddu ay ka horeyso jidkuna uu aad u khatar badan yahay baabuurtooda ay soo qaadanayaan waxaana soo fuulayaan waddadii Solomon aad ayuu u fakarayaa maadaama wiilkiisii uu ka maqan yahay halka wiilkiisii uu gacanta ku hayo Captain Poison lagana dhigay askari la baro sharciyada iyo qaanuunka uu leeyahay jabhadan hal mar ayaa waxa ku bilaabanaysa xabad Solomon gaarigii uu saarnaa waxaana soo weerarayay jabhadii laakiin waxa uu isku dayayaan inay ka baxsadaan ilaa markii dambe gaarigii uu galay geedkan Diin iyo saaxiibkii Solomon way ka soo degayaan waxayna u soo baxsanayaan dhanka kaynta in yar markay soo socdeen Diin ayaa waxa ku oranayaa aamusa halkan waxa jooga niman duurjoog ah oo qoryahooda wata kadibna waxay arkayaan nimankii ilaa markii dambe Solomon uu la hadlo kuna yiraahdo waxaan nahay saxafiyiin caalami ah mana wadna wax dhibaato ah way ku qancinayaan shaqadeedii ayay wadataa gabadhan waxayna sawir ka qaadanaysaa nimankii waxay yimaadeen saldhigan waxa jooga ninkii sarkaalka ahaa ee Deni iyo isagu ay galeen heshiiska haddii uu dhagax diamond uu helo ama macdan kale uu la qaybsanayo kadibna waxay weydiisanayaan caawimaad halka gabadhii wariyaha ahayd ay macasalaameynayso Solomon waana maalintii ugu dambeysay waxa ay dib ugu laabanaysaa wadankeedii waxa soo haray Solomon iyo Deni waxa ay soo jibaaxayaan kaymahan aadka u dhaadheer halistoodana wata habeenimo ayay ku gaadhay waxayna arkeen baabuur ciidamadii jabhadda ah kadibna way istajinayaan baabuurkii waa u dhaafay halkan ayaa habeennimadii ku hoydeen Solomon iyo saaxiibkii Deni subaxnimadii ayaa la gaaray waxa ayna bilaabeen socodkoodii maalintii oo dhan way soo socdeen habeenimo ayay ku gaadhay kadibna waxay ku nasanayaan halkan subaxnimadii saddexaad Solomon iyo saaxiibkii waxay yimaadeen meeshii lagu qariyay dhagaxa diamondka ahaa si lama filaan ah waxay arkayaan in wali jabhadii ay meesha joogto Deni waxa uu wacayaa sarkaalkii ciidanka calooshooda shaqaystayaasha ahaa maamulayay waxa uu ku leeyahay waxaan u baahanahay caawimaad Solomon habeennimadii waxa uu yimid tuuladii kadibna waxa uu si lama filaan ah u arkay wiilkiisii yaraa oo askari ah kadibna ciyaaraya turub ilaa uu soo istaagay wiilkiisa ayaa soo fiiriyay aabihiisa oo garab taagan ilaa uu ka sii jeestay turubkiisina sii watay mar labaad ayuu ku celinaya wiilkiisii laakiin waa uu ku qeynaya ilaa markii dambe uu aabihii kala tuuro Solomon waxa loo keenay Captain Poison waxa uu ku yiri qoorta ayaan ka jaraya wiilkaagana waa dilaya ilaa wiilkiisii uu soo qabtay kuna yiri haddii aad sheegi weyda dhagaxii diamondka meesha aad ku qarisay waxaan dili doonaa wiilkaaga Solomon dooqasho kale ma haysto halka saaxiibkii uu ka daawanaya halkan mana raba inuu diamondka ku wareejiyo Deni waxa uu wacay saldhigii ciidamada calooshooda shaqaystayaasha waxaanu ku yiri waxaan u baahanahay laba diyaaradood si loo soo weeraro tuuladan Solomon waxa uu soo qaatay badiilkiisii maadaama wiilkiisa la dilayo si uu u soo saaro hal mar diyaaradihii ciidamada calooshooda shaqaystayaasha ayaa soo weeraraya dhammaan tuuladii ay ku noolaayeen ciidamada jabhadda uu hogaamiyo Captain Poison dadkii ayay leynayaan waa la kala cararayaa Solomon waxa uu ku soo boodaya Captain Poison ilaa ay dhulka isla galaan waxa uu rabaa inuu ka aarsado badiilkan ayuu soo qaadanaya waxa uu kaga dhufanaya afka aad ayuu qeylinaya Solomon waxaana ka muuqata caro si arxan daran ayuu badiilkii madaxa uga dhuftay ilaa uu madaxiisii oo dhan uu ku jajabiyay badiilkii operationkii waa guuleystay Deni iyo waxa kulmaya ninkii sarkaalka waxa uu ku leeyahay aaway dhagaxii diamondka ahaa Deni waxa uu imaanaya Solomon dhagta ayuu wax ugu sheegaya waxayna iska dhigayaan inay labadoodu isku xanaaqeen Solomon ayuu qabanaya waxa uu ku leeyahay waxaad ilowday meesha aad dhigtay dhagaxa diamondka ahaa laakiin ninkii sarkaalka waa uu fahmay waxa uu ku leeyahay wiilkaaga ayaan haystaa haddii aad soo saari weydana wiilkaaga ayaan dilaya Solomon waxa soo kaxay askartii waxaana madaxiisa dul saaran qorigan keeni weydo dhagaxa diamondka adiga ayaa dhimanaya godkii ayuu dilimi waa uu noqodayaa wiilkiisa ayaa baskood madaxa laga saaray laakiin waxa uu leeyahay maya waa soo saaraya dhagaxii ilaa markii dambe uu badiilka madaxa kaga dhuftay Denina waxa uu dilay dhammaan ciidamadii meesha joogtay ilaa sarkaalkii haystay oo markii dambe madaxa xabad kaga dhuftay mishinkoodina uu halkaas ku burburay Solomon waxa uu soo saaray dhagaxii diamondka ahaa isagoo aad u faraxsan kadibna waxa uu arkay wiilkiisa oo baskoolad ku qabtay aabaha ayaan ahay adiga ayaan dartaa rafaadka u maray waa uu ooyaya ilaa wiilkiisa ka daba ooyo kadibna waxa uu ka qaadayaa baskooladii way soo raacayaan saddexdoodii waxayna rabaan inay ka baxsadaan ciidamada calooshooda shaqaystayaasha ah Solomon waxa uu soo saaraya dhagaxii diamondka waxa uu u dhiibayaa saaxiibkii safarkooda ayay soo qaadanayaan waxaana soo marayaan buuraha dheer laakiin Deni waa uu dhaawacan yahay waxaana ku taala xabad buurtan ma kori karo saaxiibkii ayaa kor ku soo qaaday Solomon si uu soo dhaafiyo buurta halkan ayay yimaadeen waxayna arkeen diyaaradan kor maraysa waa ay ka dhunteen ilaa markii dambe Solomon ku yiri ma socon karo waxa igu yaala dhaawac diamondkii qaado adigu kana baxsa halkan waa ay ismacsalaameynayaan qorigiisa ayuu soo qaadanaya isagoo dhaawaca waxa uu ka mashquulinaya cadawgan daba jooga Solomon iyo wiilkiisa waa ay soo baxsanayaan ugu dambeyn Solomon waxa uu ka soo degay magaalada London isagoo aad u faraxsan waxa uu iibsanayaa dhagaxiisii diamondka ahaa ninkan ayaa u yimi waxa uu ku yiri EC diamondka ilaa boorsadiisii lacagta uu qaatay faamilkiisa ayaa diyaarad gaar ah lagu keenay ilaa ay isku dhagdhagaan wiilkiisa ayaa u imaanaya xabadka ayuu gelinaya Solomon waxa loo sameeyay xafladan aadka u weyn maadaama uu noqday nin taajir ah waxa uu noqday billionaire haysta 30 bilyan oo dollar daawadayaal filimkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynay tan iyo inta iskaga imaan doono filimka xiga waxaan kaga tagay sidaas nabadgeliyo waan hubaa inaad ilowday inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe soo tiraadid